daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaaban oo aynu idinka diyaarinay ka bixitaankii dalweynaha Britain ee midowga Yurub. January 3 2020 ay Britain ka horeeshay midowga Yurub dhanka siyaasadda iyadoo la sugi doono bisha December ee soo aadan in gabi ahaanba isaga baxdo Britain Yurubta inteeda kale. Barnaamijkan qaybtiisa koowaad waxa ay noo mareysay sharciyada u ogolaaday Britain in ay ka horeesho midowga Yurub. Haddaba qaybta labaad waxaan ku faahfaahin doonaa waxyaabihii fududeeyay aasaasidda midowga Yurub iyo heerarkii uu soo maray. mar kale ku soo dhawaada saaxiibayaal. waxyaabaha sida tooska u horseeday aasaaska golaha Yurub sanadkii 1949 waxaa ka mid ahaa dadaallo waaweyn oo la isugu keenay ummadaha reer Yurub. marka hore 10 ka mid ah ayaa loo magacaabay golo sare. goluhu waxa uu horeyntii diiradda saaray qiyamka xuquuqda aadanaha iyo dimuqraadiyadda intii uu ku noqon lahaa arrimaha dhaqaalaha ama ganacsiga. waxaana had iyo jeer loo gogol xaaray golo ay dowladaha madaxa bannaan dooran karaan si ay wada shaqeeyaan oo aan lahayn awood heer sare ah. waxa ay sare u qaaday rajada weyn ee isdhexgalka Yurub, waxaana jiray doodo taban labadii sano ee ugu horeysay. laakiin marka ay ahayd sanadii 1952 iyaga oo ka niyad jabsan waxyaabaha ay ugu yeeleen horumar la'aanta ka dhex jirtay golaha Yurub, 6 wadan ayaa go'aansaday in ay sii socdaan iyagoona abuuray isbahaysiga Yurub iyo bulshada, taasi oo ahayd tallaabadii ugu horeysay ee xiriirka Yurub. isbahaysigani waxa ay gacan ka geysteen sidii dhaqaale ahaan la isku dhexgali lahaa, la iskuna dubi ridi lahaa tiro badan oo qorshayaal ah oo markaa jiray. hogaamiyaha reer Yurub ee kala ahaa Alcido de Espresso oo ka socday Italy, Jean Mint iyo Robert Schuman oo Faransiis ahaa, iyo Paul Harry Isback oo u dhashay Belgium ayaa fahmay in dhuxusha iyo birta ay yihiin labada warshad ee muhiim ku ahaa dagaalka oo markaa Yurub ka dhex socday. waxayna rumaysnaayeen in la xiro warshadahooda qaran si looga baaqsado dagaal mustaqbalka dhex mara ummadooda oo markii dambana aysan dhicin. raggan iyo kuwa kale waxaa si rasmi ah looga aqoonsaday aabayaashii aasaasay midowga Yurub. sanadii 1957 Belgium, France, Italy, Luxembourg, Netherlands iyo Jarmalka galbeed waxa ay saxeen heshiiskii Rome kaasi oo abuuray ururka dhaqaalaha Yurub ee European Economic Community loona soo gaabiyay EEC. waxa ay sidoo kale saxeen heshiiskii kale ee abuuray Community Atomic Energy ee loo soo gaabiyay Euratom oo iska kaashanaya horumarinta tamarta nuclearka. labada heshiisba waxa ay dhaqan galeen sanadii 1958. EEC iyo Euratom waxa loo sameeyay si gooni ah, balse waxa ay wadaagayeen maxkamadaha iyo golaha wadajirka. EEC waxa madax ka ahaa Wilton Helston, halka Euratom oo madax ka ahaa Louis Arman kadibna Ethan Hirsch. Euratom wuxuu ahaa inuu isku daro waaxyada tamarta nuclearka, halka EEC ay horumarin doonto midowga iyo xubnaha dhexdooda. intii lagu guda jiray 1960meeyadii xiisadaha ayaa bilaamay iyadoo Faransiisku doonayo inuu xadido awoodda sarreynta. si kastaba ha noqotee heshiis la gaaray 1 Luulyo 1967 oo ahaa The Major Treaty isagoo sameeyay golo kaliya leh hal hay'ad, taasi oo si wadajir ah loogu gudbiyo gudiyadii hore ee la mideeyay. sanadii 1973 ayaa la ballaariyay midowga, waxaana lagu daray Denmark oo ay ku jirto Greenland oo markii dambana isaga tagtay midowga. sanadii 1985 kadib muran ka dhashay xuquuqda kalluumaysiga oo u dhaxeeyay Ireland iyo UK, Norway waxa ay wada xaajood la gashay midowga isla sanadkaas si ay ugu biirto, laakiin codbixiyaashii Norwegian-ka ayaa diiday aftida xubinnimadooda. sanadii 1979 waxaa la qabtay doorashooyinkii tooska ahaa ee baarlamaanka Yurub. Greega ayaa ku biiray sanadkii 1981 kadibna Portugal iyo Spain ayaa iyagana ku biiray sanadii 1986. sanadii 1985 heshiiskii Shannon waxa uu wadada u xaaray sidii loo heli lahaa xuduudaha furan iyadoo aan lahayn control passport oo u dhaxeeya inta badan wadamada xubnaha ka ah iyo qaar ka mid ah wadamada aan xubnaha ka ahayn. sanadkii 1986 calanka reer Yurub waxa uu bilaabay inuu adeegsado EEC, waxaana la saxeexay heshiiskii Single European Act kaasoo cadeeyay kaliya hal Yurub. sanadii 1990 kadib dhicitaankii derbiga u dhaxeeyay Jarmalka ayaa suuro gelisay inuu ka mid noqdo Jarmalka isaga oo mid ah. isdhexgalka maaliyadeed ee ku saabsan sameynta lacagaha euro laguma darin kormeerka hay'adaha, taasoo ka dhigaysay arrinta mid dhib badan. isku dayada lagu xalinayo dhibaatooyinka iyo midowga Yurub in laga dhigo mid hufnaan iyo wada shaqayn ka buuxda waxa ay ahayd guul iyo riyo balse rumowday. waxaa halkaasi nooga eg qaybta labaad ee barnaamijka ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub. tan intii aynu ku kulmi doonaan barnaamijkan qaybtiisa saddexaad waxaan idinka tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.